tababarkan oo muddo 4 caanamaal ah uga socon doona hoteelka Mansoor ee magaalada Burco xubnaha golayaasha deegaanka degmooyinka Burco Oodweyne Buuhoodle Sheekh iyo Caynaba ayaa ujeedadiisu tahay barashada nidaamka ismaamulka degmooyinka iyo gobolada Somaliland iyo tayeynta adeegyada bulsho ee golayaasha deegaanka bulshada mas'uulka uga yihiin tababarkan oo iska kaashanayaan wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland iyo maxadka dawladaha hoose ayaa waxa ka soo qayb galay furitaankiisa xubno ka tirsan golaha wasiirada Somaliland xubno kamida barasaabada gobolada ay hoos tagaan degmooyinkani maayarada degmooyinka tababarku u furmay mudan iyo mas'uuliyiin kale waxaana ugu horeyn iba furay ujeedada tababarkan looga gol leeyahay iyo muhiimadiisa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale agaasimaha maxadka dawladaha hoose ee Somaliland waxaan isugu nimid tababarka shanta degmo ee ka tirsan dhowrka gobol ee saaxil togdheer daadmareed iyo buuhoodle oo aan isugu keennay magaalada Burco tababarkaas oo aad ku baran doontaan shaqadiina oo ay ka mid tahay maamul wanaagga oo ay ka mid tahay samaynta xeerarka maadaama aad tihiin gole xeer dadjineed oo ah gole degaan adeeg bixinta ay bulshadu idinka sugayso maamul daadajinta iyo wada shaqaynta dawladda dhexe hogaaminta iyo xalinta khilaafaadka iyo wax allaaliya wixii horumar ah iyo wanaaga ee deegaanadiina iyo degmada la idinka soo doortayba ay u baahan tahay waxaan maanta isugu nimid inuu inoo bilaabmo oo gobolka Togdheer xaruntiisa Burco inooga bilaabmo tababar induction training macnaheedu yahay indhafur oo loo qabanayo shanta degmo halkan maanta inala fadhiya iyo xubnaha golaha deegaanka shanta degmo tababarkan waxa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxadka dawladaha hoose waxa inala socdo oo inoo jooga khubaro inoo bixin doonta lamaan casharadaasi wasaaradda arrimaha gudaha waxay bilowday doorashada golayaasha deegaanka markii ay dhacday in ay samayso qaab tababar loogu sameeyo golayaasha deegaanka ee cusub waxaan leeyahay shanta maalmood wixii kulli 4 cisho dibna wada joognaa wax kala badan baynu sii oran doonaa dhankooda waxa iyaguna ka hadlay ahmiyada tababarkan ugu fadhiyo xubnaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka uu tababarkan u furmay wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta ee Somaliland barasaabada gobolada Togdheer Saraar iyo Buuhoodle iyo sidoo kale maayarada Burco iyo Buuhoodle waxaan soo dhaweynayaa dhammaan degmooyinka ka soo qayb galay tababarkan dawladaha hoose iyo mudanayaasha dhammaan ka isugu yimi marka saddexaad waxaan u mahad celinayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaha wasiirka hawlaha guud oo halkan ku sugan barasaabka gobolka Saraar iyo dhammaan mudanayaasha meesha ku sugan oo ka mid yahay gudoomiyaha maxadka dawladaha hoose Eid Muuse Maxamuud soo dhaweynayaa tababarka noo furmay maanta iyadoo ay tahay in la barto shucuurta dalka iyo maxay wixii danaa ummadda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu ka faa'iideysano xildhibaano iyo maayarada waan soo dhaweynayaa marka hore waxaanu halkan gobolka Togdheer iyo degmada Burco ku soo dhaweynaynaa degmooyinka aanu jaarka nahay degmooyinka aanu walaalaha nahay degmooyinka wax badan isaga kaay jiraan maanta xubnahoodii golaha deegaanka ee la doortay halkan loogu qabanayo siminaarkan waxaanu leenahay ku soo dhawaada kaliya laab gobolkii Togdheer degmada Burco aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kuna soo dhaweynaa marka hore waxaan anigu ku dardaarmayaa kaliya tababarkan la doonayo in la idin qabto muddada 4 casho waxaan filayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu noqdo ku idinku anfaca runtii waxaan uga mahad celinayaa wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii xil iska saartay in doorka ay dawladaha hoose ku leeyihiin bulshada in sare loo qaado si ay u fahmaan awoodaha iyo imkaaniyaadka loo yimaday in ay bulshada u hayaan in loo tababaro waxa jirta shaqada qofku marka bilaabo hadaan horay aqoon oo madaxa kaga yimaado meeshuu gunta ka soo bilaabi lahaa dhibaatada ay leedahay wax kasta oo aad istiraha wax ka qabana waxay u baahan tahay farsamo iyo garasho iyo aqoon haba yaraatee in loo yeesho
waa fahmi kaysa xirsi bulsha TV burco